dastuuraan sharci ansixinay wax badan oo aan ugu talagalnay in ama diinta lagu ilaaliyo ama maxaan ku raad diinta lagu hormariyo lagu weyneeyaa ku jira culimada inta dastuurkaas la sameynayo dhan goobjoogay ahaayeen taladay ku jireen maxaan ku raad waxyaabaha aan macquulka ahayn ama shakiga keeni karo dhan in meesha laga saaray ka shaqeeyeen waxyaabaha dadka Soomaalida ay leeyihiin oo haddii ay arkaan dhiiri gelinayo diinta jeclaysiinaya in lagu daro hay-adii culimada ku taalo diinta islaamka diin aan ahayn inaan lagu faafi karin dalka aan la ogolaanaynin in xaggana kaniisad laga dhiso xaggana macbad laga dhiso xaggana muxuu ahay laga dhiso lama ogolaanayo ninnan islaam muslim ahayn hadduu meeshaan noogu yimaado diintiisa inuu haysto waxba kama qabno ku khasbi mayno inuu maxaan ku dhahday diintiisa uu ka tago laakiin inuu faafiyo oo dadka Soomaalida ah dhexdooda uu ku faafiyo ma laga ogolaanayo wax u eg in la faafinaayana ma laga ogolaanayo laakiin diinta islaamka diin oo yani dabacsan xariis badan furfuran wada noolaanshaha ummadaha adduunka oo dhan ogol sida haddana loogu fasiray oo diin dadka laaynaysa waa loo leeyahay ma aha marka wajigeedii dhabta ahay annagaana laga rabaa inaan adduunka tusno laakiin waa inaan gurigeena ka bilowno